dagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarb alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhaahday ku taalla ciraaq waxaa inteeda badan haystay bershiya dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceeda kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya 200 kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah is hortaagan iyo intii la socotaya saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين ka mid ah Sa'd ibn Abi Waqqas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynaa laga dambeeyay ka mid ah marka Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sa'd weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhexmaro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay صدح الصحابي هي كل بمدوتين مثلا ميت كميدون هذين سوقاتنا ربعي بن عامر با كميدا ninkan wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda farsi yaro gaaban buu wataa وانا intaasoo bilood dagaal ku soo jiray deenin ay ka muuqato adduun iyo daldalaalkii maaha Rabi'i ibn Amr farasiro gaaban wata soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degin hay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid u faraska ku xidha dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaadhaco waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isaga ii yeedhay anigu umaan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su'aal baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxaari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوبحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ودغنو وحنوسع النابلين البنادم كحرينه مخلوق خلينا وأضون سنة إلهي يقول إن يدتكو الضومة والنقضان ودتكو حرية هلان فحنوسع النابلين عبادة إلهي قاركو نقض وحنو كلاو صع النابلين إن ندتك دونيدا عريري هذا كسر رب اللعيدة وصاره هذا وين كان كاربتية عصر نكتاية عرشي وين كفر ديه أيوه حكولة عريري كاسارية عريري هو قلبك كان دونكو قيمة ولا ما فردية وين كاربت يدني وحن نكون فردية وين قيمة وما سمينش وحن كلف عن عدالة دي مارتاي توحيد كيسي الدين تيسي وحا استا كلف بركا وحولي دونك هو رباطكو قبطاي عريري كان دون من كاب حين يا وحن كو صاريا محي بلع دون كان كو جيني يا بولي وحن كلو سعود ابو يري ديمها ظلمigooda inaan ka kaxayno islaamka cadaaladiisa ku saar يعني موقف كان wuxuu sawiraya ninka kani walow meeshan ninka xoolo badan oo ka birbirka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu mu'taz bidiin yahay diintiisa wax u dhigantay inaanu jirin inuu rumaysan yahay taas waxay keensanaysaa in qofkani diintiisa ilaashado إلهي وحنا لي حتى هدي سيدا كلنا الله يدينكو حقبته ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ورها اللي دنينا بقى ليلوها مرغوننا إذنكا كوريا هدي إيمان وجرو هذا ربيسان تاي ربك يكو حدان تاي هذا كوريا صلى الله عليه وسلم تلمامنا والصحابة غير مكاها يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي يسوي مغضينا
markii bayt almaqdis muslimiintu ay furteen bayt almaqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kaloo 10 almubashiriin hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yidhaahdeen sharti ah furaha sulxi baanu gelaynaa saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa furihii bayt almaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho wuu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabaddii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhoweynaya ka hor yimo abaa cubayda wuxuu yidhi cumarow ما جعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم ورينيو magaalada dadkeedii madaxdeediina ku arkaan sidaan adigoo ninkan faydanay cagaa dhoobada kule in lagu arko maan jecli buu leeyahay cumar eraygii wuu dhibsaday adiga ciidan awah low yaqul hada ghayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhaahdo abaa cubayda adigoo kaa xishoonaya buu leeyahay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay markaa waa ka xumay buu leeyahay low ghayruka qaalaha mid aan adiga ahayn muu warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yara rabuun isagoo amiirulmu'miniinku u muuqda amiirulmu'miniin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn innaa kunna adalla qawmin dad aad u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyahay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meelaan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogayn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik bialadii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحيدي حجسو فاستمسك بالذي وحي إليك وحي لغوسو وحي يضي حجسو وايو جد صحبات كسوغان تيبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانتي وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغوسو دجينا شرف بوكوية هاي أذيك يطلق بابا إلهي لي ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kaana yuriidu alcizzata falilaahi alcizzatu jamiica aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alcizza faina alcizzata lilaahi jamiica waxaan leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inuu kaga baxno wixii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tan inaynu naqaano